filimkani maanta waxa uu ku bilaabmayaa naag magaceedu waa Malena taasoo aad u qurux badan. Malena waxay ku nooshahay tuulo yar waana gabadha ugu quruxda badan magaaladan. Qof kasta oo magaaladan ku nool wuu jecel yahay iyada, halka naagahii magaaladan ay ka maseereen waxayna isku dayeen inay iyada camal noqdaan. Nin kasta oo magaaladan ku nool wuxuu doonayay in Malena uu isagu u helo. Magaaladan waxaa ku nool wiil yar kaasoo magaciisu yahay Renato, kaasoo wax badan ka yar Malena. Maalin Renato wuxuu qaatay baskiil cusub wuxuuna aaday asxaabtiisa si uu u soo tuso. Dabadeed waxay si kadis ah isha ugu dhufteen gabadh timo madow oo jamaal iyo jirba eebo ku galladay. Isla markiiba Renato iyo asxaabtiisa waxaa godladay qooqi caruurnimada. Waxay isha la raaceen xubnaha ashqaraarka leh ee Malena. Wiilkii yaraa ee Renato waxaa tin iyo cirib dhexrooray wax caasha qooq iyo waali loo kala garan waayay, indhihiisana uu ka jeedin waayay. Markay Malena dhaafto kadib dhalinyaradii way ka soo dababaxayaan gabadhii Malena ee quruxda badneyd xitaa ilaa ay soo gaarto gudaha magaalada. Kadib waxaanu aragnaa Malena aabaheed waa macallin mana dhageystaan ardayda uu wax barayo. Ardayda iskuulku waxay fadhiyaan qolkooda fasalka iyaga oo siyaabo kala duwan wax ugu sheegaya Malena, waxayna dhibayaan aabaheeda. Markaasi kadib Renato wuxuu tagay guriga Malena oo wuxuu bilaabay inuu eego. Malena waxay ku jirtay jawi murugo ah guriga dhexdiisa. Halkan waxaan ku ogaanaynaa Malena ninkeeda oo raacay ciidanka intii uu socday dagaalka ilaa iyo haddana uma soo noqon. Dhinaca kale waxaanu aragnaa Renato iyo saaxiibkiisa oo ka wada hadlaya Malena. Renato ayaa saaxiibkiisa u sheegay inuu mar Malena ka dalbaday sigaar ayna leedahay balwado kale. Dadka magaaladana ay yiraahdaan Malena ma aha naag wanaagsan. Waxyaabo kala duwan ayaan laga faafiyay Malena gudaha bulshada. Intaa kadib waxaanu aragnaa Renato oo bilaabay wax badan inuu ka helo Malena. Renato wuxuu maqlay dad badan oo xamanaya Malena iyagoo leh ma aha naag wanaagsan. Si furanna waxay ula hadashaa qof kasta. Renato si walba ay dhigihiisa ugu dhacaysay xumaanta Malena, balse isaga waa uu ka sii helayay. Sidoo kale wuxuu bilaabay inuu maalin cad uu ku riyoodo Malena isaga iyo iyada oo wax wadaagaya. Hadda Renato wuxuu rabay inuu u noolaado sidii oday, laakiin dhab ahaantii wuxuu ahaa dhalinyaro. Renato wuxuu bilaabay inuu xirto dharka iyo kabaha aabihiisana arrinkaasi ma jecleen. Aad ayuu uga carooday arrintan wuuna garaacay. Laakiin Renato weli ma hagaagsana. Wuxuu sii waday daba socodka iyo milicsiga Malena. Markasta wuxuu ka eegi jiray Malena godkii uu ka samaystay gurigeeda, halka Malena aan waxba ka ogeyn arrintan inuu qof daabanayo. Dabadeed akhbaartan ayaa si kadis ah u timid. Malena ninkeeda ayaa ku shahiiday dagaalka. Malena aad ayuu u niyad jabiyay kadib markii ay maqashay warkan, waxayna bilowday oohin. Halkan waxaan ku ogaanay Malena inay aad u jecleed ninkeeda. Markay ogaatay warkaasi in ninkeeda uu ku shahiiday dagaalka kadib sugitaankii waa dhamaaday, waxayna joojisay ka fikirkiisa. Kadib waxay u wareegtay guriga aabaheed oo way ka guurtay gurigeedii. Maalin Renato oo meel ka shaqaynaya ayaa wuxuu maqlay dad siyaabo kala duwan wax uga sheegaya Malena. Waxa uu dareemay in isaga oo kaliya uu og yahay runta Malena. Haddana wuxuu go'aansaday inuu u sheego qof kasta in aan Malena ahayn naag xun, kaliya ay jeceshahay ninkeeda. Renato hadda wuxuu aaday guriga Malena aabaheeda. Sidoo kale wuxuu bilaabay inuu madadaaliya ama malawaal u sameeyo si Malena ay uga hesho. Isagu wuxuu u sheegay Malena inaysan niyad jabin uuna garabkeeda u yahay. Qalbigiisana wuxuu la hadlayaa Malena. Intaas kadib waxaan aragnaa Renato oo aadaya kaniisadda, wuxuuna baryayaa sanad meesha taagan aynu u yaqaanaan Allahooda, wuuna u ducaynayaa, wuxuuna sheegayaa inuu wax kasta isagoo u bedeli doono. Dhinaca kale waxaan aragnaa aabaha Malena oo helay warqad taas oo ku qoran arrinka Malena wuxuu ku socday qof kasta oo magaalada jooga, waxaana ku qoran in gabadhiisu aanay ahayn naag wacan. Arrintan aabaheed aad buu uga carooday, wuxuuna hadda diiday inay la noolaato gabadhiisa Malena. Wuxuuna u sheegay inay ka baxdo gurigiisa. Oo hadda Malena waxay noqotay mid keli nool ah mar kale. Wiilkii yaraa ee Renato ayaa ogaaday arrinta in Malena ay kaligeed noqotay mar kale. Markiiba gurigeeda banaanka ayuu soo aadayaa, wuxuuna bilaabay inuu ka daawado isla godkii. Habeenada ka mid ah markuu tago guriga Malena, dabadeed wuxuu arkayaa in askari booliis ah gurigeeda joogo. Labadoodana waxay u ekaayeen inay run ahaantiis afgarteen. Renato aad ayuu ugu xumaaday midaas, wuxuuna iskula hadlayay waxaan u haystay inay tahay naag wanaagsan oo aan u socday. Dadka kalena waxaan u sheegay in Malena ay tahay naag wanaagsan. Isagu ma rumaysan tan haba yaraatee. Kadib askarigii booliiska ahaa ayaa ka soo baxay guriga. Renatona wuxuu bilaabay inuu ka dhunto ama uu iska qariyo.
marka booliiska sargaalka soo baxay dabadeedna waxaa banaanka kaga hor yimid dhakhtarkaas ayaa u sheegay sargaalka booliiska Maleena inay isguursan rabaan wuxuuna ku dhahayaa maxaad ka sameynaysay gurigeeda meesha ayayna iskugu gacan qaadayaan labadooda kadib booliis ayaa meesha imaanaya taas kadib arinku wuxuu ku faafayaa meel kasta oo kamid ah magaalada in Maleena ay xiriir la sameysay nin xaasla ah taas oo lagu xiri kara Maleena aad bay ugu xanaaqday arinka inta kadib waxay u tagtay qareen waxayna u sheegtay arinkaas inuu ka caawiyo qareenka Maleena ayaa ku guuleystay kiiskan qof walbana wuu ogaanayaa in dhakhtarku uu been sheegayay kadib ku guuleysiga kiiskan isla qareenka ayaa damac ka galay Maleena wax badan ayay ka warwareegtay laakiin oday bahalkan waxaasoo dhan kuma soconin wax walba uu sameynayo Renata wuu daawanayaa markuu arkay aad buu u xanaaqay kadib waxaan aragnaa in cadawga uu soo weeraray magaalada Maleena aabaheedna waa la dilay Maleenana waxay u timid inay ogaato geerida aabaheed markaan aad bay u murugsan tahay sababtoo ah hadda cidna dunidu uma joogto qof daryeelana ma haysato wax kasta oo howlgabka ninkeeda dartii Maleena ay u qaadan jirtay ayaa sidoo kale hadda la joojiyay sababtoo ah magaalada waxaa loogu faafiyay inay tahay naag xun waliba jirkeeda ka ganacsato hadda Maleena lacagta ayaa ka dhamaanaysa oo xaaladda ayaa ku cakiran wax badan ayaynu ku fikirtay inay shaqaysato laakiin wax xirfad shaqo ah ma taqaano laakiin muddo kadib waxay soo qaadatay maqas waxayna bilowday inay timaha iska jarto waxayna go'aansatay oo iskula hadashay haddayba dunidu iigu yeertay naag xun marka hadda waa inaan noqdaa naag xun wiilkii yaraa ee Renato waxa dhacayo oo dhani waa uu ka xun yahay sababtoo aad ayuu u jecel yahay isaga arinka ay ku kacday ayaana aad uga careysiiyay Renato xataa wuxuu joojiyay cunada cabitaanka murugada Maleena darteeda kadib aabihiisa ayaa ogaanaya arinka wiilkiisa sidoo rabay ayuuna u sameeynaya aabihii Renato wuxuu geeyay meesha uu Renato rabitaankiisa ugu rumoobi karto dhanka kale waxaan aragnaa Maleena oo hadda noqotay naag xun nimanka magaalkana saf u soo galay iyada sababtaas awgeed xaasaskii nimankaas aad bay uga caroodeen oo waxay u imaadeen Maleena wayna garaaceen magaalada ayayna ka saarayaan inta kadib waxaan aragnaa seega Maleena oo soo laabtay mana dhiman isagoo nool ayaana laga faafiyay war qaldan inta kadib wuxuu aadayaa gurigiisa laakiin waxa uu arkayaa gurigiisa oo dad kale ku nool wuxuuna weydiinayaa dhamaantood xaaskiisa Maleena qof walbana wuxuu u sheegayaa in xaaskiisa ay noqotay naag xun oo hadda halkan ku nooleen markaa kadib wuxuu u tagayaa asxaabtiisa si uu arintan u ogaado saaxiibadiisa way ku maadaysanayaan markuu xanaaqayna intay caayaan oo ay garaaceen ayaa haddana kala tuurayaan kadib Renato ayaa goobta joogay wuuna ka xumaanayaa arintaasi wuuna saacideynayaa wuxuuna iskula hadlayaa waa inaan ogeysiiyaa xaqiiqda Maleena waxaan qof walbana u cadeyn doonaa Maleena inay tahay naag wanaagsan intaasi kadib Renato waxa uu warqad u qoray Maleena ninkeeda oo uu u sheegay Maleena naag xun inaysan ahayn laakiin dadka tuulada ka dhigeen naag xun bulshadana kala kulantay xumaan aad u badan waxyaabo xun ay ka sheegi jireen Maleenana aad bay ugu xanaaqi jirtay iyagaana ka dhigay qof xun Renato fariintaas ayuuna u qoray Maleena ninkeeda waxa ku dhacay iyo sida tuulada loogu saaray markii uu ninka Maleena akhriyay warqadan aad ayuu uga carooday dadka halkan joogo dabadeed wuu soo noqday si uu xaaskiisa u soo ceshto inta kadib waxaan u aragnaa inuu isla magaaladii ku soo noqday isagoo xaaskiisa la socda inta ka bacdi dhammaan dadka bulshada waxay bilaabayaan inay eegaan labadooda laakiin hadda qof kasta wuu ixtiraamaya iyada sababtoo ah hadda ninkeeda ayaa la jooga dhammaan dadka magaaladan ayaa bilaabaya xushmeynta Maleena mar kale qof walban wuu ku faraxsan yahay inuu arko wadajirkooda inta kadib waxaanu ku aragnaa muuqaalkii ugu dambeeyay ee filimka Renato oo la kulmaya Maleena kadib shandada Maleena waxa ugu jira qaar marka ay ka soo dhacaan kadib uu caawinaya Renato intuu soo qaado ayuuna siinayaa Maleena wuxuuna u rajeeyay mustaqbal wanaagsan intaasi kadib Maleena iyo seegeeda waxa uu bilowday nolol fiican filimkana halka ayuu ku dhamaanayaa